maalmii laga soo gudbay maxkamadda gobolka Murudijeeh ay dhageysanaysay dacwad ka dhana wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo suxufi ka howlgala deegaanada Somaliland isla markaana dhanka kale ah aasaasihii ururka kaalmee kuwan waa urur u dhaqdhaqaaqay sida dadka tabaalaysan iyo sidoo kale dadka hayntooda buuxdo oo dacwad xilaalintu ku soo ogtay muddo ay ku soconaysay waxaana si rasmi ah saaka loogu dhawaaqay natiijada kama dambaysta ee isla dacwadaasi Axmed Dalmar Ismaaciil gudoomiyaha maxkamadda gobolka Murudijeeh ayaa isagu ku dhawaaqay isla natiijada dacwadda waxaan warfidiyeenka sharaxaad gaar ahaaneed ka siiyey dacwaddan iyo sidoo kale qodobada ay u adeegsadeen in badan buu xidhnaa si dacwadda aan soo gabagabayno waqti dheer baanu siinay alxamdulillah maanta aan ku dhawaaqnay maxkamad ahaan maxkamadda gobolka Murudijeeh Hargeysa waxay ku xukuntay Cabdimaalik Muuse Coldoon 2 sano xarig ciqaabeeda oo uga soo baxay markii aanu eegnay gal dacwadeedkiisa cadaymay maxkamadda la hor keenay isla markaana aan ku qanacnay waxaan ku xukunay 2 sano xarig ciqaabeeda 3 qodob baa ku eedaysnaa oo ahayd 2 kamid ahaa inuu taga xamar oo isla markaana taageeray farmaajo iyo qodobo kale oo farabadan baa ay ku eedaysnaa marka qodobadii uu ku eedaysnaa adu xashideedii ku xusayn 2 qodobna waa lagu helay oo qodobka 212 iyo qodobka 328 qodobka 220 waa lagu waayay 2 sano xarig ciqaabeeda lagu xukumay isaguna maxkamadda markii uu ka baxay wuxuu sheegay inuu ku qanacsiyo xukunka uu qaadanayo uu dambigaana galay qiraal baanu ku ahaa markii dambiga tagay sidoo kale qodobada ay u adeegsadeen TV-ga Somali Cable ayaa gudoomiyaha Axmed Dalmar Ismaaciil wax ka weydiiyay 2 sano uu iibsan karayo in kale xeerka sheegay xarig iibka wixii hal sano ka badan isla markaana qodobo loo eega shuruudo ah wixii hal sano ka badan xarig iib horta ma leh shuruudaas laakiin kulli hal sano xarig iib markay leedahay shuruudaha loo eega lafteeda dhanka kalena TV-ga caalamiga Somali Cable waxa uu suurta gashay in dankiisa uu wax ka weydiiyay sida uu arko go'aanka ka soo baxay maxkamadda qareenkii u dooday wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon Maxamed Axmed Abakor midna kuma cadaan maxkamadda horteeda kama cadaanin waxaanu difaaciga keenay inuu yahay nin samafala ah waxaanu keenay heesa iyo ammaan uu u jeediyay wadanka Somaliland oo marka af Carabiga warka la saaray la soo daayo oo adduunka oo dhan laga sii daayay iyo inuu samafalay yahay oo dad badan u samafalay waxa kaliya maxkamadda ka hor cadaadana waxay noqdeen inuu taageeray farmaajo oo kaliya taageeradaas madaxtooyadu way taageertay oo afayeenka madaxtooyada ayaa taageeray madaxweynenimada taageerada farmaajo iyadana waan soo bandhignay markii aanu difaaciga keenay waan soo bandhignay marka ma aanan arkayn wax dambi oo meesha ka dhacay inuu muwakkilkaygu sameeyay sidaa darteed aad baan uga xunaynaa una cambaaraynaa xukunka 2 sano ee ku dhacay muwakkilkayaga ee lagaga xukumay qodobada 212 iyo 328 xeerka ciqaabta guud ambiila dacwadda xukunka waanu ka qaadanay waxaa sidoo kale intii dacwaddani socotay dhageysanayay marka laga yimaado ehelkiisa iyo sidoo kale suxufiyiinta hay'adaha u dhaqdhaqaaqa dhanka xuquuqul aadamaha Axmed Xuquuq waa mid ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa isla dacwaddan waxaanu iga waramay dareenhaan siday ula muuqato waa nin ku caanbaxay samafalka iyo gargaarka dadka jilcisan ama u hadla dadka aan codkooda maqal the voice of the voiceless buu ahaa marka arrintaa ku dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay wax kale oon hadda iraahdo anigu garan maayo waayo dee go'aankii wuu dhacay waxaanan leenahay waan ka xunnay 2 sannadoodna waa waqti aad iyo aad u badan marka insha Allah ta'ala ilaahay baa farashka la furi doona wadan ku furnayd wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa si weyn looga wada dhul sugayay go'aanka kama dambaystay ka soo baxa oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa